waxaan rabaa inaan u sheego waxyaabaha meediyaha waxaan leeyahay waxyaabaha been abuurka ee aad samaynaysaan gaar ahaan YouTube-leyda nimanka YouTube-leyda ah inta sawirro soo qaato saraakiil shaqadeeda ku maqan oo qaranka Soomaaliyeed u shaqaynayso oo dawladnimada u shaqaynayso oo shacabka Soomaaliyeed u shaqaynayso inay tasawirradooda soo qaataan ay dul saaraan niman maxaan ku yiraahdaa mucaarad ah ay yiraahdaan mucaaradkiya maxaan ku yiraahdaa ay difaacayaan annagu mucaarad ma difaacno saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed nahay dawladda federaalka aan difaacnaa qaranka Soomaaliyeed aan difaacnaa waxaan leeyahay marka horena waa ula hadlay haddana waa la hadlayaa waxyaabaha aad maxaan ku yiraahdaa meelaha soo dhigtaan oo shacabka Soomaaliyeed aad ku dhibaataynaysaan iska daaya dalka wax ka dhisa dawladnimada wax ka taageera iska daaya dhaqan xumada hadduu Ilaahay yiraahdo taas iyagan leeyahay insha Allah aad u mahadsantihiin dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 12aad waxaan leeyahay waxaan idinku baraarujinayaa shaqo insha Allah shaqadaasna waa inay adkaataa hadduu Ilaahay yiraahdo qaranka Soomaaliyeed dawladnimada la difaaca militariguna siyaasad shaqo kuma leh nin walba ka adkaado hawsha loo dhiibtay oo difaaca dalka dadka iyo diinta iyo dawladnimada meeshan Buulaburta la yiraahdaa waxaan u joognay shaqo qaybta 12aad taliskeeda ayaa halkaan ah shaqaan u joognay welina shaqadeedii waa u joognaa waa taliska meesha qaybta 12aad insha Allah waxaan jecelnahay haddana waxaan rabaa inaan shaqo kale u aado magaalada Jowhar hadduu Ilaahay yiraahdo gobolka Shabeellada Dhexe oo maxaan ku yiraahdaa aan iyadana soo kormeerno hadduu Ilaahay yiraahdo saaka u socona insha Allah